السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصعد قيمة بدنية كحرا جنال كامل تكنولوجي اسكسونا قدون أكسن إن شاء الله تعالى ما توحي نقادونا دوالي معاشر كي لحادي نكبرنيني سوفتوير كان الاستريتر كان عشر كان وحاكون رأي عشره هوريتو وإلا شن عشره فضل هدي هدو نوصو بيرتي عشره صودا وصونا براتي جري هدي هتكون صوفاتد وحقوف وادونتو إلا نلجان قادد aanu kusoo laabano mar kaleeto hadduu ala idmo maanta waxaan disaangaray doonaa desaynkan hortiin ka muuqdo desaynka waa id card sidaa la socotaan id card waxaa loo disaan garay karaa laba qaab in loo disaan garay qaab horizontal ah sidoo kaleeto qaab vertical ah cashiradii ka horreeyay sida photoshop waxaan ku baranaynay iyadoo loo disaan garaynaya qaab jijiif ah maanta waxaynu baran doonaa id cardadan loo disaan garayo qaab joogjoog ah markaas la socod wanaagsan marka horeeto waxaynu soo furi doonaa artibot si usoo furtid waxaad tagtaa file kadib new markaad daadid kadib meeshan waxaad ku qori doontaa magac cabirkan waxaa soo sii doontaa 4341 6247 intaas markaas u siiyay grid leh anaga waa abuuranay hadda waxaan noo abuuran hal artibot haddii aan u baahannahay inaan ku soo darsano artibot kaleeto waxaynu tigi doonaa isla artibotkan mar kaleeto uma baahan inaan soo furno kaliya artibotkan markaan dhex imaano waxaan tugi doonaa toolskan qaybta lagu magacaabo artibot tool ama sidoo kaleeto shortcut waxaad u isticmaali kartaa shift plus d marka intaas daadid waxaa kuu soo bixi doono qaybta option barka qaybtan pluska ama new artibot hal mar klik leh sidaa la socotid hadda waxaa kuu samaysmay artibot kaleeto laba artibot waxaa rabnaa inaan isku garab yeelin kadib waxaan dooran doonaa move tool si ay ayaga u ekaadaan shaashada waxaa dhahdaa control 0 idikaarka naqshadiisa waxaynu ka bilaabi doonaa marka horeeto qaybtan ugu koreyso waxaynu tigi doonaa qaybtan toolska waxaynu kusoo darsan doonaa rectangular tool kadib waynu ku daragaray doonaa intaas markaanu sameyno colorkan hadda sida ujeediinba wuxuu qaadayay stroke waxa loo yaqaan wuxuu qaatay stroke haddii stroke aan u baahanin waan isku xiri doonaa sidoo kaleeto waxaanu kusoo darsan doonaa colorka waxaynu dooran doonaa isla karakan tas markaanu sameyno haddii adi uusan colorkan kugu jirin koodkiisa anagaan kusii doona meeshaas double click kadib koodkan qaada haddii u baahan tahay colorkan intaas markaanu sameyno waxaynu u baahannahay inaan ka jarno geeskan si aad u jarto hal gees ama hal direction waxaa marka hore aad kusoo darsataa waxaa loo yaqaano add anchor pointgaas click soo dheh hal mar meeshaas click ku dheh qoraalkan kuus kadib waxaan dhihi doonaa okay waa noogu diri waxaan tigi doonaa direction toolka kadib halkan geeskan click ku dhihi doonaa markaan sameyno geeskan waanu jari doonaa geeskaas kale tagaan leekaysiin doonaa kadib waxaanu kusoo darsan doonaa qaybtan waxaa lagu magacaabaa polygonal si aad usoo darsisto waxaad tagtaa qaybtan toolska weliba qaybta rectangularka polygonalka si dooro markaas bis meel banaan keli ku dhow waxaa laga yaabaa inuu 6 ku yahay waxaa laga yaabaa inuu 5 ku yahay si aynu ugu soo darsano mid 3 gees leh waxaanu meel banaan ayaan keli ku dhigi doonaa 3 ayaan ka dhigi doonaa tas markaanu sameyno asiga si default noo sameynaa shift la qabo kadib kan naga saar uma baahanin kan marka si aynu design-ka aynu u wareejin u rotate gareyna geeskaas aynu tigi doonaa marka noo soo baxdo calaamadaas kadib waxaanu ku rotate garey doonaa 270 degree markuu intaas noo gaaro inta aynu gey doonaa kalarkiisa waynu ka bedeli doonaa waxaynu ka dhigi doonaa kalar black ah si aynu marka hal dhinac ugu dheereyno kan sida ujeediinba waa dheer yahay geeskan keliya ayaanu keli ku dhihi doonaa geeskaas kadib waynu daraagarey doonaa waynu ku jiidi doonaa intaas markaaynu sameyno waxaynu u gudbi doonaa qaybtan xigto waa sawir lagu sameeyo clip mask waxa loo yaqaano marka hore waxaanu soo gasho doonaa sawirka soo dooro meeshaas waxaad gasho doontaa sawirkaada hadda sawirkan waa sawirkayga waa sawir aan hor galay kadib waxaynu ku sameey doonaa waxa loo yaqaano clip mask si aan sameyno waxaa shardi ah marka hore inaan ku soo darsano ellipse tool kadib aynu ku daraagareyno colorkan uma baahna si ay naga xiri doono intaas markaanu sameyno kadib waxaynu labadooda hal mar waxaan saar doonaa highlight kadib waxaan dhihi doonaa right click waxaan dhihi doonaa kadib make clip mask soo jidii baad waxa qarsoomay backgroundki macala stroke soo diristid waxaad tagtaa propertieskan haddii uusan properties kugu jirin waxaad tigi doontaa window kadib waxaad soo dooran doontaa qaybtan propertieska qaybtaas ayaa soo doontaa property aad soo saar doontaa kadib inta ay ku soo gal doonaa propertieska marka stroke waxaynu ku diri doonaa ilaa 50 cabirka u baahan tahay ka dhigi doontaa balse hadda waxaan dhihi doonaa 50 ama 40 waxay isdhamaan intaas markaanu sameyno sawjidi bahda sawirkan iyo stroga
sawirku waa yaryahay si aad sawirka keliya aad u lekeysido stroga asiga waxaa dhihi doontaa hal mar double click waxaa rabaa inta kaleeto xoogaa inay opacity-ga yaraato oo kan ku muuqdo kadib geeskaas ayaa qaban doontaa adigoo lahaa shift intaan ayaan hadda ka dhigi doonaa highlight ayaan hal mar isla saari doonaa wax yar dib ayaan usoo saki doonaa bas markaanu sameyno waxaynu kusoo darsan doonaa qaybta xigta oo detailska qofka magaciisa ID cardkiisa iyo sidoo kaleeto meesha uu ku dhashay taariikhda uu dhashay tawkiisa iyo emailkiisa waxaanu ku bilaabi doonaa marka hore magaca si aan u darsano toolska aynu tagi doonaa waliba qaybtan tool type toolka loo magacaabo kadib kaliga ayaan ku dhihi doonaa farta ID hadda ay yar tahay waxaan dhihi doonaa qaybtan 12 ayaan waxaan ka dhigi doonaa 200 farta harna ay noo soo weynaato cabirka ay rabtay ayaa siisan doontaa magaca waxaan dhihi doonaa magaca ay gasho doontaa yahay Sheekh Ahmed magaca ay gasho doontaa kadib waanu weynay doonaa anagu shift la hayno shift waan dhigi doonaa si aanu hal dhinac markuu weynayno taas markaanu sameyno waxaanu ku sii xigi doonaa qaybta detailska ugu muhiimsan qofkan ID cardkiisa ID ayanu soo dooran doonaa farta capital ayanu ka dhigi doonaa ID cardka qofkan sidoo kale to ID cardka ama saynu ku bigareysan doonaa isla siyan si uu ku bigareysano dultag alta la qabo dultag alta la qabo waxay raacaa dib inoogu celi dultag alta la qabo marka aynu soo bigareysano kadib magaca ayanu ka bedeli doonaa si aad magaca u bedeshay dultag double click dheh kadib qaybtan bis naga tiro waxaan dhihi doonaa marka data of birth xilligan qofka uu dhashay qofka xilliga uu dhashay sidoo kale to talka iyo emailka tan kale to move to soo dooro kan kale to loo dultag double click ku dheh kadib waxaa dhahdaa tal qofkan meeshii laga xiriir lahaa hadii wax dhacaan qofka ID cardka qofka qaadanaya waxa muhiim ah oo la rabaa in laga helo shuruudo ama category sida numberkiisa meesha uu ku dhashay emailkiisa si emergency haduu dhaco loo la xiriiro kadib waxaan dhihi doonaa email intaas markaanu sameyno hadda waxaa diyaarno oo kaliya xogta hadda geli doonaa qofkan waxaanu sii doonaa ID card meeshaas waxaad gashi doontaa ID cardkaada rasmiga ama ID cardka uu ku siiyo company-ga waxaan dhihi doonaa hadda c kadib waxaan dhihi doonaa 12 tirada kale tan sii geli taas markaanu sameyno qofkan xilliga uu dhashayna waa muhiim inaanu helno waxaan isku geli doonaa taariikh waxaan dhihi doonaa 1 bisha koowaad qofkan 2000 u dhashay waa 23 jir sidoo kale to kan noo soo kuubi garay talka gay soo kuubi garay iyadana emailka gay si uu waqtiga noogu beeqaamo kadib waxaan dhihi doonaa lambarka 61 furushana kadib inta kale tan ka sakis markaad ay gasho doontaa qofkan emailkiisana waxaan dhihi doonaa 11 kadib gmail.com si aynu marka hal mar intaan isku control u weyneyno hal mar waxaanu soo saari doonaa dhamaantood highlights la saar kadib shift la qabo daraagrey hadda waxaan design gareynay oo kaliya waa qaybtii koowaad ee ID cardka qaybta ID cardka sida socoto wuxuu leeyahay laba qaybta labaad waxa ku qoran badanaa ID cardka haduu dhow meeshii laga xiriir lahaa qofka emailkiisa iyo talkiisa iyo shirkadda ama company-ga ama jaamacadda loogadeeda waxaan soo gashi doonaa hadda QR code-ka ay leedahay shirkadda ama company-ga sawirkan soo qaad doonaa kadib waxaan geedi doonaa qaybtan hoose qaybta la soo design gareeyno waxaan soo gashi doonaa marka hore to rectangular kadib ku daraagrey colorkan waxaan qaad doonaa waxaad ogaataa marka ID card design gareynaysa kaliya badanaa waxa la qaataa laba color badanaa ama saddex color oo ka badan design-kaada colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa colorkan jaalaha ah si aad u dhigto marka hore move tool soo doora si waa inuu ku doornaadaa kadib waxaad ku raacdaa kali waxaanu soo gasho doonaa isla loogadan waxaanu sameynaa cashirka ka horeeyay hadii aadan soo daawan cashirka soo daawo highlight noo saar kadib ku binoode qaybtan ayanu tigi doonaa basta ayanu ku dhihi doonaa loogada meesha waxaa gasho doontaa uu leeyahay company-gaada kadib waxaanu kusoo dashi doonaa xariiqan wax kale maahan waa rectangular soo dooro keliyaha yahay rectangular size-kiisa markaad yareysid wuxuu ku noqon doonaa ul toos ah waxaan u daraagrey doonaa geeskan si uu noqdo fit kadib ID cardkan lacala haduu naga dhumo xogtii meeshii naga soo xidhan lahayn qori doonaa waxaan dhihi doonaa fadlan hadii aad hesho ID cardkan waxaa ka codsanaa inaad ku soo celiso company-ga
intaas ayaynu qori doonaa oo text ah. waxaan dhihi doonaa fadlan haddii aad aragto ID kaarkan waxaa kusoo hagaajisaa kambaniga. kadib kambaniga xogtiisa ayaan meeshaas sii geli doonaa. kambanigaas magaciisa geli doontaa ama emailkiisa meeshaas waxaa iska dhigi doonaa kiskiis adiga buuxin doono. kadib move tool soo doora wax yar shift adigoonan haynin qaybtan hoos u daraagarey si uu noogu qorxanaato. waxa kaliya noo dhiman waa talkan adiga gasho doona waan soo koobgareysan doonaa labadoodaba. kadib waxaan ku dhihi doonaa past qaybtan hoose ayaan u daraagarey doonaa. waxa kaliya oo noo dhiman oo hilmaamno waxa waa loogadan waxaanu saari doonaa qaybtan xigto. kadib waxaa dhahdaa right click ugu bidhaa ama control c labadaba waad samayn kartaa. kadib past inoogu dheh qaybtaas koreeto inoo gey wax yar dib u yaray loogada. sidaa ujeediin baad waxaynu design gareynay designkii aynu ugu talagalnay maanta inaynu ku barano cashirkan oo ah cashirkii 6aad. waxaynu ku baranay ID card si loo design gareeyo waliba ID card joog ah. hore waxaan soo baranay ID card design oo loo design gareeyo qaab horizontal ah. maanta waxaan baranaynaa vertical. cashirkan maanta inta aynu ogyahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro janag subscribe sidoo kale tan asxaabtaada la wadaag si ay nagu faa'iideystaan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.